deegaanka docol ee hoostaga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa saldhigga ciidanka ay ku leeyihiin waxa goordhow ka kacay dab. Wariyaheena Liibaan Cajiib Xaaji ayaa war soo saaray Saaka Maxamed Cali Maxamed uga waramay. waa maasantahay Maxamed wararka naga soo gaariga docol gobolka Mudug isla markaana qiyaastii 40 kiiloomitir u jirta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya inuu dab ka kacay mid kamid ah qolalka saldhigga uu leeyahay deegaankaasi isla markaana hubka lagu keediyo waxaana gudoomiye ku-xigeenka deegaanka docol gobolka Mudug mudane Ahmed Hussein waan goordhow waxa uu sheegay in dabka uu kacay isla markaana ilaa hadda aysan garaneyn waxa sababay dabkaasi uuna sheegay in badan uu halkaas uu ka kacayo isla markaana uu saameyn ku yeeshay dabka halkaasi ka dhacay. gudoomiye ku-xigeenka waxa uu sheegay in ilaa hadda inta la ogyahay hal qof uu ku dhaawacmay kaasi oo loo soo qaaday dhinaca magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ilaa haddana waxa uu sheegay in aan lagu guuleysanin daminta dabkaasi isla markaana aan loo dhawaan karin halka uu dabka uu ka kacayo ah baqaar lagu keliyo hubka ku dhex yaala xabsiga dhexe deegaankaasi uu leeyahay. oo mahadsantahay Liibaan. faahfaahinno ayaa ka soo baxaya qarax ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada dawladda oo ka dhacay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Liibaan Nuur Xasan ayaa warkan dhameystiraya. duleedka deegaanka Warmahan ee gobolka Shabeellaha Hoose gelinkii dambe ee shalay waxaa qarax lagu eegtay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya. qaraxaasi oo sida la sheegay ahaamina dhulka lagu aasay ayaa sababay dhimashada laba askari iyo burburka gaari booyada oo la sheegay inay wateen ciidamadu. dadka ku sugan deegaanka Warmahan iyo deegaanada hoostaga ayaa keenan oo sheegay in duleedka deegaanadaasi ay ka maqleen jugta qarax aad u xoogana. dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi ayagoo sheegay inay dileen askar ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayna gubeen gaari booyada oo shidaal u siday. hayeeshee ma jirto ila ka madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada Al-Shabaab. xiriiro aan la sameynay saraakiisha ciidamada ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa inoo suuragelin si aan wax uga weydiino khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi. dhanka kale ciidamada militariga Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah Al-Shabaab waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayagoo shalay deegaano hor leh si nabadgelyo ah Al-Shabaab uga wareegay. beelo wada daga gobolka Hiiraan ayaa aana qabiil dad u kala afduubtay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Yoonis Duraan Cali ayaa warkan dhameystiraya. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Hiirshabeelle waxa ka taagan afduub ay isku geysanayaan beelo walaalo ah wada daga gobolka Hiiraan waxaana arinta ay salka ku haysaa aanooyin qabiil. wararkii ugu dambeeyay naga soo gaariyay magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in ilaa haatan la kala qabsaday laba qof oo labada dhinac ay kala qafaasheen. mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hiirshabeelle ayaa la sheegay in arinta ay ku baxeen waxaana labada dhinac ay ka dalbadeen in la tijiyo xiisada. weli beelaha waxay kala haystaan dadka ay ku kala afduubteen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. nabadoon Islow Roble Qaasim oo kamid ah odayaasha dhaqanka magaalada Beledweyne oo la hadlay raadiyo kulmiye xafiisuliyadkiisa Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in labada beel ee walaalaha ay gudaha Beledweyne ku kala afduubteen dad gaaraya laba qof welina xiisadooda ay taagan tahay. gobolka Beledweyne oga markii waa ka jirtaa xasaasiyada ka jirta dad macnaha shacabka oo la qabsaday waa jiraan. wallahi dadka uu hada maamulka waa dad la soo magacaabay oo kuwii hore u joogay la bedelay. dadkii la magacaabayna waa imaadeen xilwaayada iyo kuwa bariimada iyo kuwa imaadeen waxay u imaadeen magaalada Culeyskeeda iyo Dabaateeda. wallahi dadka hadda la kala haysto dadka ma badno waa hal iyo laba si aan malaynaya sidii sheegay hal iyo laba waaya. marka wax kale oo caawi iyo intaan ogeena hadda soo kordhin sheekari waa laba iyo hal waay. walaalo dadka hadda oo macnaha faldabeedka sameeyay waa dadkii dawladda barbaari oo ku dhashay oo dawladda macaankeeda iyo dadnimadeeda aan dareemin. wallahi horta nuuta ninka wax leeyahay hebel aan raba ma dhahay laakiin waxa weeye dadka ma yaqaana hebel waa dalira waa sidoo ama sidii ama haya dadka dad ay yaqaaniin oo calaamaysan malaha. waxa hadda aan hore u qaylinay haddana xilfaayada iyo dadka mas'uuliyiinta sare ay soo guuleeyeen kamid tahay waxaas horaan u sheegnay. wixii hadda aan ka hadalnay oo ka cabanaynin waxna waa la badalay waxna waa daba jawaaro marba inay sii joogayaan qiyaasaya. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada waxaa inta badan ku soo noqnoqda dagaalada u dhaxeeya beelaha walaalaha iyo afduubka isku geysanayaan. ilaa haatan ma jirto cid si rasmi ah arinta xal uga gaartay.
madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland, Galmudug iyo Puntland ee ku sugan magaalada Nairobi ayaa kulan waxay kula qaateen xubno ka socda beesha caalamka magaaladaasi. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan dhameystiraya. magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya waxaa ku sugan qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo maalmihii dambe shir gooni ka waday magaaladaasi. madaxda ku sugan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf iyo Saciid Cabdullaahi Deni oo ah madaxweynaha maamulka Puntland. iyadoona maanta la filayo in uu gaaro magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya isla markaana uu ku biiro madaxdaasi madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare kaasi oo dhawaanahan heshiis la ahaa dowladda dhexe ee Soomaaliya. ilaa iyo hadda lama oga sababta ay ugu shirayaan madaxda maamul goboleedyada dalka magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. warar hoose ayaa waxay sheegayaan in shirar gooni ay leeyihiin mas'uuliyiinta beesha caalamka waxaana maanta la filayaa in halkaasi uu shir ugu furmo madaxda maamul goboleedyada dalka. kulankan ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shirka golaha amniga ugu wacay madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo aan ka soo qaybgelin isla markaana uu baaqday shirkaasi oo dhici lahaa 29 bishan. waxaa sii xoogaysanaya khilaafka u dhaxeeya qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. dhanka kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf oo ku sugan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya wuxuu halkaasi kula kulmay safiirka dalka Ingiriiska iyadoona ay ka wada hadleen sidii loo caawin lahaa bulshada ku nool deegaanada Galmudug. waxaa laga dhorsugayaa waxyaabaha ka soo baxa kulanka ay ku yeelanayaan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalka.